maanta sheekadii waxaan ku soo qaadanaynaa dhacdadii ugu yaabka badan ee ka dhacday dalka India arooskii dhaliyay muranka badan ee qabsaday baraha bulshada ee dalka India haddii ay tahay marka ugu horeysay na soo booqato fadlan furo calaamada gambaleelka si aad ula socoto muuqaal wiilbo aan soo gelino la wadaag videogan asxaabtaada geersi meel dheer haddaba aan guda galno sheekadeena maanta sheekadan ayaa ka dhacday dalka India lamaane u dhashay dalka India ayaa qabsaday baraha bulshada muddooyinkii la soo dhaafay qaabka ay u dhigteen arooskooda ayaa waxay noqotay in ay la yaabaan dadiyowga ku nool dalka India waxay dhalisay muran fara badan sawiro laga soo qaaday lamana aroos ah oo dhex fadhiya dugsi weyn oo dul sabaynaya biyaha daadadka ee wadooyinka ku fatahay ee koonfurta India ayaa niyada u dhisay dadka gobolkaas oo ay saameeyeen masiibooyinka ka dhashay roobka mahigaanka waxay ay u eg tahay in aysan jirin wax caqabad ah lamaanaha ka hor istaagi kari xafladooda arooska xitaa daadadka daran ee ku fatahay tuuladooda Akaash iyo Aashu wariye waxaa ka go'an in aysan ka baaqan maalinta weyn ee arooskooda oo isniinta ka dhacay xaafadda Talafadi ee ka tirsan gobolka Kerala lamaanaha oo labadooda ah shaqaale caafimaad ayaa si weyn loogu faafiyay baraha bulshada waxaana la arkayay ayagoo adeegsanaya digsi ay doonta ka dhiganayeen roobka mahigaanka ee xafladda arooska xitaa daadadka dalku dhuftay tuuladooda Akaash iyo Aashu wariye waxaa ka go'an in aysan ka baaqan maalinta weyn ee arooskooda oo isniinta ka dhacay xaafadda Talafadi ee ka tirsan gobolka Kerala gobolka Kerala ayaa sababay fatahaado waaweyn halka meelaha qaarna uu dhulka gooyay webiyada ayaa qarka jabsaday buundooyinka iyo wadooyinka waxay noqdeen kuwo ay biyaha cagta mariyaan meelaha qaar waxaa godan galay magaalooyin iyo xaafado dhan goobta oo ka dhacay arooska Kaash iyo Cashuuri oo ah madbacad yar waxaa lamaanaha ayaa dugsiga weyn ka soo ergaday xarun kale oo ku taala isla tuulada deegaanka waxa ay codsadeen in lagu caawiyo sidii ay biyaha ugu dhaqaajin lahayd doonta macmalka ah ee ka sameeyeen dugsiga cuntada lagu kariyo waxaa sawirada laga arkay rag lamaane ah oo ku riixaya dugsiga ay dhex fadhiyeen xilli ay ku wareejinayeen wadooyinka si ay arooska u galbiyaan arooskii wuxuu isu bedelay mid aan weligiisa noociisa lagu fakirin ayay tidhi Caasha Waariya oo ah aroosada mar ay la hadlaysay warbaahinta maxalliga ee Ascent arooskan cusub ayaa sheegay in markii hore ay qorsheeyeen in ay samaystaan munaasabad iska yar oo ay ka soo qayb galaan dad kooban oo ka mid ah xubnaha qoyskooda balse hadal haynta ka dhalatay arooskooda iyo sawirada faafaya ayay u arkaan mid aad u xiiso gelinayso arooskooda sababna u noqotay in la ogaado meel badan oo ka mid ah caalamka Akaash ayaa sheegay in isaga iyo gabadha oo guursaday ay maalinta arooskooda qorsheeyeen muddo ka hor sida awgeedna aysan doonayn in ay dib u dhigaan wuxuu intaasi ku daray inay ku adkaysteen fulinta arooska maadaama aysan ogeyn waxa kale oo dhici kara sida ay ku warantay wakaaladda wararka AFP marka uu ka hadlay dugsiga ay doonta ka dhigteen ayuu sheegay inuu ahaa waxa kaliya ay samayn kareen maadaama ay hawshu ahayd mid degdeg ah